Moogtahay in kaluunkan uu yahay kaluunka adduunka ugu yaabka badan waa midka ugu culus kaluunada badda sidoo kale waa kan ugu maskaxda yar kaluunkan waxa lagu magacaabaa sunfish ama kaluunka cadceedda u eka waana mid kamid ah kaluunada adduunka ugu yaabka badan kaluunkan wuxuu dhererkiisu gaadhaa ilaa 3 mitir halka culiskiisu gaadho 2300 oo kg wuxuuna ka miisaan culus yahay noolayaal badan oo ku jira badda gudaheeda kaluunkani waa mid aan ahmiyad siinin markay noolayaasha kala cunaan ama goostaan qayb kamid ah jirkiisa wuxuuna sii wataa noloshiisa gaarka waxa jirta hal sabab taas oo ka dhigaysa kaluunkan inuu sii noolaado waana in markay kaluumaysatadu qabtaan badanka ay dib ugu tuuraan badda inkastoo xajmigiisu leeyahay gaadhi balse haddana kaliya waa maqaar iyo lafo wax laga cunana ma laha markasta waxa ku dhaca xanuuno iyo dulin marka xayawaanada ugaadhsanaya qaniinaana si dhaba ayuu u sabeeyaa biyaha dushooda sababtoo ah xanuun dhan ma dareemo badana xayawaanaduna hal mar uun bay qaniinaan kadibna waa ay ka tagaan maadaama uu dhadhankiisu aad u xun yahay laakiin waxa taas ka sii daran inuusan lahayn dabo amba dib sidaa darteed aad ayuu u gaabiyaa marka la eego socodkiisa waana sababta uu yahay noolaha ugu heerka hooseeya dhanka badbaadada dhammaan xayawaanada dunida oo dhan haddaba sidee ayuu u dabargo'i waayey jawaabtu waa mid fudud saaxiib halkii kaluun ee dhiddiga ee noocan ihi halkii mar ayay sii deyn kartaa in ka badan 300 oo milyan oo ukumood taasina waa wax lala yaabo haddaba daawade adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo kaluunkan hore ma u aragtay se magacee ayaad u taqaanaa qaybta kommentiga hoose iigu sheeg hayloobin inaad follow noo saarto youtube iyo facebook profileka saaranna aad subscribe dhahdo